جمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل دواد عشرانتين كبرين برنامج إكسسكا. عشرانتي كن كهرية وحين كسو قادني إني مركا نتابع الله يسوع سمعني كويري عشرة دي سيد سو برنامج مركا كرييت كهدين تبنو كويري ديزاين تبنو حين صوب برنامج سيدا كويري سلكتيها waxyaalaha fara badan oo uga baahan tahay tayballadaada aad uga baahan tahay aad uga soo saaran karayso marka maanta insha Allah waxaynu soo gabagabeynaa query selectiga in soo gabagabeynaa marka hadii aan sida revision quick revision sida hadaan ugu soo sameeyo intiina aan soo daawanin casharaantii hore hadaan soo daawanin waxaynu soo dhignay mesela hadaad u baahan tahay table inaad wax uga baahan tahay oo macluumaad table ku jira aad uga baahan tahay sida u soo baaran lahayd inuu adeegsanayna criteria kala duwan marka aad doonayso inaad wax baadho inuu nidi halka inta select soo saarto xagan soo wala dhigo marka soo wala dhigato waxa aad baarayso ee criteria-da aad meesha aad ama column-ka aad wax ka baarayso iyo hoostiisa imanaysa halka criteria-da ku qoran tahay halka baad marka waxyaalo fara badan gelin karaysaa marka waxyaalaha la gelin karayo aynu soo qaadanay maxaa kamid ahayd hadii aad u baahan tahay qof magacii mesela Abdullaahi baan u baahanahay si sax ah inta u qorto halka markaad ku dhufato two quotation ka marka labada dhinac ka mariyo two quoteska inaad okay view inaad oranaysid oo sida kugu soo saari taas waa dariiqad okay waxa tan lamida hadaad sida u qorto iyo hadaad equal qorto labadaas waa isku mid wax farqi ah ma keenaya marka equal bay la mid tahay waxa kale oo qori karaysaa greater than iyo less than adoo adeegsanaya mesela imika tan oo kale waxaad u adeegsan karaysaa hadii numberaan oo kale tahay imika salarigeena hadaynu leenahay ka weyn hadaynu leenahay 600 wixii 600 ka weyn noo soo saar markaynu leenahay waa greater than wixii 600 ka weyn oo dhan buu xaga kugu soo saaray lacagta mushaharka la qaatay 600 ka weyn iska ilaali weliga la soco waxa aad wax ka baadhaysid column-ka wax ka baadhaysid waa inaad garanaysid column-ka wax ka baadhaysid oo criteria-da la tacaamulaysa waa inaad la socotid hadii aad leedahay ka weyn ama la egna halka baad sii gelinaysaa greater than or equal to baad leedahay 600 marka saad ugu dhufanaysaa marka waxa ku soo biiraya wixii 600 ahaa ee markii hore ka hadhay ku soo biiraya waxaad oran karaysaa greater than or equal to taas weeyaan waxaad oran karaysaa less than baad oran karaysaa less than 600 wixii ka yar marka waad ku dhufanaysaa wixii 600 ka yar oo dhan ba xagan kugu soo baxaya ee mushahar la qaato iyaduna sidaas la mid ah equal to waad raacin karaysaa iyaduna waa sidii oo kale oo wixii 600 yaa isaguna soo galaya ee markii hore ka hadhay waxa kale oo adeegsan karaysaa oo aad ku baari karaysaa ama query-gan aad adeegsan karaysaa between baad u adeegsan karaysaa intiina between gaarin waxaad u adeegsan karaysaa not equal to mesela waxaan doonayaa magacyada oo dhan inuu soo saaro Abdullaahi mooyee yani inuu Abdullaahi iga reebo marka maxaad leedahay not equal to waad leedahay calaamadda not equal to saad u qoraysaa marka view waad leedahay sorry magaci ma qorin not equal to Abdullaahi waad leedahay marka waxaad leedahay view marka Abdullaahi uu ka reebay wixii kale oo dhan kugu soo qoray meesha magacyadan Abdullaahi kama arkaysid kan wax ka baarayna waa kan waa column-ka weyn wax ka baarayna marka Abdullaahi kama arkaysid okay marka taana waa dariiqada adeegsanayso hadaad doonayso inaad adeegsato dariiqad oo waxa kale oo adeegsan karaysaa between baad adeegsan karaysaa oo mesela waxaad doonaysaa inaad tiraahdo ii soo saar lacagta between u dhaxaysa 600 anda waad leedahay marka 700 lacagta 700 ilaa 600 u dhaxaysa mushaharka ee la qaato iyo dadka qaatiyo waxa ay soo saar marka view waad leedahay inta u dhaxaysa 607 609 okay taana waa between dariiqado sida taariikhda ugu adeegsanaysiyo waxa soo dhan hore soo maray imika revision yar oo maartay degdeg u sameeynayna waxaad adeegsan karaysaa kala anda baad adeegsan karaysaa oo hadaad cashiraantii hore soo daawatay criteria-da halka linkiisa soo dhan anda bay ka dhigan tahay waxaad halkan ku qorto halkaana ku qorto waa sida tan iyo tan laba criteria oo waxa sameeyay marka waxaan leenahay imika
cabdillaahi gan horaan soo baarnay matalan waxaan leenahay 3 qof noo soo saaray marka waxaan doonaynaa hal qof oo ahaa qofka xamar jooga marka andha baan adeegsanaynaa marka waxaad imanaysaa city-ga halku joogay marka waxaad leedahay xamar marka waxay ka dhigan tahay tan labaad oo qortay andha bay ka dhigan tahay maadaama aad rowgi criteria-da ku qortay rowgi criteria maadaama aad ku qortay andha bay ka dhigan tahay marka waxaad leedahay view baad leedahay marka cabdillaahi waa xamar jooga ku soo saaray okay taana waa andha or baad adeegsan karaysaa baynu nidhi marka ortu waxay ka dhigan tahay intan dambe oo dhan waxaad ku qorto or bay ka dhigan tahay marka haddaan sorry taas kama saxaya tan markaad ku qorto cabdillaahi waxay ka dhigan tahay cabdillaahi iyo way ka dhigan tahay yani cabdillaahi ama way ka dhigan tahay waxaad ii soo saartaa wixii cabdillaahi ama yuusuf matalan imika haddaan yuusuf qoro yuusuf haddaan xataa sii wado ama hebel ama hebel ama hebel saasay noqonaysaa yani marka wuxuu kuu soo saaray wixii cabdillaahi meesha ku jira iyo wixii yuusuf ku jira labadaa hadduu helo wixii buu soo saaraya okay marka muxuu kuu soo saaray cabdillaahi iyo yuusuf intii meesha ku jirto kuu soo saaray marka ortan waxay u taagan tahay intan dambe oo dhan waxaad ku qorto waa or inta magaca ku qorto dhan maxaa kuu soo saaraya okay andha iyo orna saasay kala yihiin maxaa kaloo soo qaadanay oo adeegsan karaysaa bracketskii baan soo qaadanay square brackets inta waxaan gelisay magac sii gelinaysay maxaa kaloo soo qaadanay like baan soo qaadanay matalan haddaad doonayso kale wixii magacyada a ka bilowma oo kale matalan like baad leedahay baad a baad qoraysaa asterisk baad marka halkaas samaynaysaa marka waxay ka dhigan tahay wixii cabdillaahi waxaan ka wadaa wixii a ka bilowma dhan marka maxaad leedahay view baad leedahay wuxuu soo saaray cabdillaahi axmed iyo cabdillaahi labada qof baa iyo wax ay ka bilaabmo ugu jira maxaa ay wixii ku dhamaada haddaad doonayso inaad tiraahdo ay matalan ba yani magacyada ay ku dhamaadaan u baahnahay aydii intaad qortaad asteriska xagga dambe ka raaci marka asteriskadu wuxuu faa'iidadeedu tahay mar walba dhinaca aad ka raaciso waxay kuu xadidaysaa yani xagga dambe aad doonaysaa inuu ka bilaabmo xarafkani mise xagga dambe inuu ku dhamaado marka inagu waxaynu nidhi imika wax ay ka bilaabmo marka wax ay ka bilaabmo ma juu ku leeyahay xagga dambe aad ka gelinaysaa marka yani xidigta xagga dambe ayda ka marinaysaa yani waxay ka dhigan tahay wixii ay ka ku dhamaado dhan ii soo saar marka muxuu kuu soo saaray cabdillaahi iyo shaafi iyo mustafi iyo waxaas oo dhan kuu soo saaray okay marka taana like taana waan soo qaadanay iyadana oo si kale loo adeegsanayo oo iyadoo sidan si kasii faahfaahsan waan soo qaadanay marka intaas revision yar oo maaragtay degdega ha noogu filnaato oo cashiraantii hore intiina aan soo daawanin ama intiina aan soo fahmin waxaynu ka soo hadlaynay wuxuu ahaa query-ga select ah marka query-gu wuxuu u qaybsamaa dhowr nooc u qaybsamaa query-ga bes waxun bes laguma baaro wuxuu sidan aan intaan soo isticmaalay cashiradii hore bes looma isticmaalo maxaa kaloo lagu samayn karaa waxaa kaloo ku samayn karaysaa table baad ku samayn karaysaa table-ladan aan soo samayn jiray baad query-gan ka samayn karaysaa waxaad samayn karaysaa append mid la yidhaahdo oo table wax kuugu jiray baad table kale ku daraysaa waxaad samayn karaysaa update oo table wax kuugu jiray yaad query-gan dhexdiisa ka bedeli karaysaa cross tabka iska dhaaf isaga delete waxaad samaynaysaa table wax kuugu jiray baad adigoo query-ga adeegsanaya delete garan karaysaa marka waxaan oo dhan waa query-ga cross tabka iyo unionka iyo kuwan insha Allah adigu mar iska wax muhiimana kuma sii jiro kulli waana iska advance marka waxaynu qaadanayna waxay yihiin delete-ka iyo update-ka iyo append-ga iyo make table afarta waan qaadanaynaa bal marka aan raacino make table-ka sida query aad u adeegsanaya aad table u samayn karaysid marka haddaan tan iska xidho waxba ha isab garanin ilaahdo caadi halkeeda imika umaad ku laabanaysaa create baad leedahay query design baad leedahay table-ka aad doonayso inaad wax ka samayso baad soo dooranaysaa marka imika keeni noogu laabo employee-geeni okay dha marka inta aad soo waxaysato maxaad soo gelinaysaa xaggan macluumaadka aad u baahnayd waxaan ugu soo celiyay oo keliya inaan ku tuso dariiqada aad soo maraysay sida inagoo halkii kusii jirno waan kabsii bilaabi karayay laakiin waxaan ku tusayaa sida minablo aad uga soo bilaabaysid marka shift intaad qabatid halka ku dhufatid sida caadiga ahayd ku soo xareyso halkan intaas waa horaad u soo martay intaan imika dariiqadan soo marro dhumaad query select-ga intaad soo adeegsanaysid weyn okay marka maxaan doonaynaa table-ka aad doonayso inuu yahay inaad samayso muxuu yahay okay marka table-ka aad doonayso inaad samayso yaad xadidaysaa imika waxaan doonaynaa inaan table la yidhaahdo managerska dadka maamulayaasha shaqaalaheena maamulayaasha inaynu table u samaynaynu doonaynaa okay marka haddaan table-keena saa u furano
ma intaynu dadka managerska saa u soo eegno Cabdillaahi waa manager oo haddana hoos u socono qof kale manager kan sumeeyo qoftan waa manager ma intaynu sidaa u soo sameynayno table dib u furanaa abin sheeko dheer maraa ma marayno marka dariiqada aan adeegsanayna daawo maxaad ku qoraysaa halka ay kuugu qoran tahay joobka shaqada la qabto yaa waxaan leenahay managers ma ku qoraynaa inta ma ku qorto marka halka ku qorto iska ilaali siday u qoran tahayna u qor hadii kale ma garanayo waxa meeshan aad ku qoraysaa maadaama uu xaqii ka waayay meel banaan ku soo saaray marka siday u qoran tahay u qorto design ka tag mar walba oo la tacaamulaysid query-ga haddii aad meel kale taababkan kale haddaad ku jirto kuma soo saarayo properties-kii ama khasaa'istii query-ga marka waa inaad mar walba joogtid query design si aad toolskii aad adeegsan lahayd halkan ugu heshid iyo properties-kiisa wixii aad ugu heshid marka maxaa leedahay markaad halka ku qorato intaaba maxaa leedahay make table inta ma ku fanaysaa bas make table maxaad u bixinaysaa buu leeyahay managers baan u bixinaa waan leenahay okay waa table ka aan sameynayno magac aan u bixin lahayn ma current database baad ka sameynaysaa mise another database baad ka sameynaysaa buu current database yani kanaad ku jirto mise database kala ka sameynaysaa dabcan kana ku jiraan ka sameynaynaa marka waxaa leedahay okay inta maad samaysay wali ma inaan sameyn table-kii ma inaan sameyn bal haddaan aragno wuxuu noo sameeyo table-ka waad arkaysaa in iminka wali ma inaan fulinin wuxuu yidhi Cabdillaahi iyo Sumeeye Maxamed Siyaad afartaa qofka wax manager aad meesha ku haysataa oo waa lagu sii tusayaa yani table-ka nooca lagaaga dhigay marka view-du saasi faa'iido ka dhigantahay waa tus shaqadaad qabanayso okay markaan si aan shaqada u fuliso waxaad sameynaysaa run baad leedahay wuxuu ku yidhi afar row baan yaan ku basti gareynayaa new table arrinta ma la socotaa yes baan leenahay waan la soconaa sidaa table-kaaga waad ku samaysay okay halka marka maxaa ku yimid managers table-ladii waa noo yimid table-kaaga noo yimid jadiidka halka intaynu table ku soo furano aynu mashruuc soo marnahay sida tartiibtaada haddii xataa manageradana kun qof ahaan lahayn kun qof hal mar buu macluumaadkoodii wuxuu wasaa ku soo dhigi lahaa marka waa dareemi karaysaa dabcan query-ga faa'iidadiisa marka haddaan saas uga xidho kan query-gan maad save garaysan mise ma save garaysanaysid okay haddii aad save garaysato faa'iidada ku jirta maxayse tahay balan save garayno marka si aan faa'iidadiisa u aragno query-ga save de managers make table waxbaad maarta iska odhanaysaa managers make table si aynu kuwa kale uga kala garanno baynu sidan ugu qoranaynaa marka okay baad leedahay aan iska xidha marka okay calaamadaaba marka kuu sameeyey query-gii hore ee aynu soo adeegsanaynay aynu soo isticmaali jirnay ee query select aynu u bixinay way ka duwaneed calaamadiisu ama halka iconka calaamada iconkaas uu ka duwanaa nooc ka duwan buu ahaa laakiin kan waa mid ka bedelankii oo ku tusinaya inuu waxaan meesha ku yaalay make table in query-gan table sameeyey kuwan ka mid ah okay marka faa'iidada ku jirta inaad save garayso waxay tahay haddaan iminka employees-kayga ku soo daro qof jadiida oo manageran ka dhigo halkan mu iigu soo biiri managerskii kuguma soo biirayo okay laakiin markaan doonayay inaan ku soo daro seen ugu soo dari just click baad ku siinaysaa kan wuxuu sameynayaa intuu dib u wala delete gareeyo macal kuwii hore intuu wala delete gareeyo iyo kuwii hore u delete gareeyay iyo kuwa dambe ee jadiidka ah ku hal mar ku soo wala dari okay si aad marka u aragtaan sameeyo qof waxaan ku soo darayaa manager baan qof ka dhigi ku soo dari jadiida qofka ka dhigaa talan continue ko qofkan waxaan ka dhigaa Faadima ka dhig Faadima Ahmed si aad u aragto kuwan kale haddaan doonno iska dhaafeynaa raasaan ka dhiganaa xakan markaa waa iska dhaafaysaa intan kale si aynu u aragno qofkan ku soo daray laakiin waxa kaliya u baahan tahay waa inaad manager ka dhigtid okay manager shaqada uu qabanayo qofka manager uu yahay marka faa'iidada waxaan doonaynaa waxay tahay qofkan manager-ka inuu table-ladii noogu daro ila marka table-kaas mar walba on xaqan employees-ka aan qof manager kaga ziyaadino inuu toos xagga ugu daran doonaynaa okay marka kan iska xid sidaa uu kugu soo gareeyo qofkii marka bal manageradii eeg muu kugu soo daray qoftii Fatima ku soo dareynay ee ID-ga ku konto sidatay meemuuna kugu soo daray marka soo ugu soo daray maxaad sameynaysaa iska xidhaysaa si uu kugu soo daro make table tan aynu soo sameeyno baad ku dhufanaysaa yes baad leedahay waxbaad modify garanaysaa ku leeyahay data kugu jirtay marka yes baad leedahay waad sii wadaysaa wuxuu delete gareynayaa wixii ku sii jiro dhan buu delete gareynayaa
markaas delete gareyntan waxa ka dhigan tahay intuu delete gareeyo uu ku soo celiyo iyo kii kalena soo raacinaya ku soo dartay waa inta marka yes baad leedahay shan buu ka dhigay marka afar bay markii aan Soomaa shan buu ka dhigo qofkii uu soo daray yes baad leedahay marka xaggan aan ku naawno managerskeena wuxuu sameeyay Faatimadii qoftii oo halka joogto manager ku soo raaciyay okay marka save gareynta inaad save gareyso faa'iidada kugu jirtana waa taa bal si una 10 kuna ugu dheeraanin make table ta ku joojinayna insha Allah 10 keena dab waxaanu dhiganaynaa sida aad append u sameyn lahayd ama update u sameyn lahayd ama delete u sameyn lahayd yanu ku soo doonaa Abdullahi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh